Hargeysa waxa uu isagoo saaran gaari dusha ka furan uu salaan la dhexmaray shacabka reer Hargeysa ee wadooyinka taxnaa. intaasi kadib madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdidii ballaadhneyd ee uu hogaaminayay ee shirka wadanka Djibouti kaga qayb galay isla markaasina maalmihii la soo dhaafay halkaas ku sugnaa waxa loo soo galbiyay aqalka looga arrimiyo Soomaaliland madaxtooyada oo hadda halkan aan ku suganahay waxa goobtan ka dhacday munaasabad kooban oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wafdigiisa lagu soo dhaweynayay isla markiiba madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalka lagu soo dhaweeyay waxaana uu diray baaqiyo kala duwan isagoo ka hadlay wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya dalka Djibouti uga qabsoomay shacabka reer Soomaaliland ayuu u sheegay inay isku duubni muujiyaan sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu baaq u diray beesha caalamka isagoo ugu baaqay inaanay suuragal ahayn Soomaaliland marnaba ay Soomaaliya kala hadasho deeqaha iyo sidoo kale waxyaabaha bini'aadantinimada la xiriira ee Soomaaliya la soo mariyo shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dawladii ugu xoog weynaa shir ay iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dawladda Mareykanka ugu horeyso oo ay ka soo qayb galiyeen Yurub EU oo dhan dawladaha Yurub xafiiskii matalayay Afrika kii matalayay African Union dawlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilihii loona xil saaray dawladda Djibouti inay marti geliso shirka markii la dooday cid dawladda soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dawladaha oo ka Mareykanka ugu xoog roonaa waxa loo go'aamiyay in la yiraahdo arrintu waa culusta markii horreysay in la garabsado arrintu waa culusta hadday culus tahayna oodan camadsa u kala sareeyaan baa loo guraa waxaan u diiday xageen ka bilowna waxaan ku niriday waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyay horta hal fulin markaas la bilaabi doonaa haddaan tii hore la fulin haba yaraatay haba weynaatay haddaan ku hore la fulinay maxaa tud malga bilaab dadka nala doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira mas'uuliyadu waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aad uga dhalsan ma yahay tii dhaqaalaha oo ka dhalsantiin oo soo taageen inama meesh joogo wardi anaga dawladda dhaxaw anaga caalamka la midnaa kala ma ictiraafsana oo kulli cidii ku dooratay iyo cid aad u taliso oo ula tag anaga wadina ma wayne anaga isoo madax banaan ta caalamka soo joogsan taas oo ay si dhab ah ugu yiraahdo qorada wax bixisa Mareykanka ugu wareeya anagu Soomaaliya oo dhan baan wax siinayna haddii deyn laga saamaxana Soomaaliya oo dhan Soomaaliyadii hore oo dhan isku soo waxsiin haddii idaan heshiis ku ahayn socon mayso qoladaynu saayna waxba kama rabno xamar ma wada hadlayno waynu isaynaa waynu iskhilaafsanahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadeenu u sheegaynaa halkaynu kala taaganahay oo qadiyadda inaynu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamka dadka isqabto uu kala saaraa ama wada hadal baa loo kala saaraa ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkaan uga sheegaya idinka Soomaaliya heshiis ma soconayso wada hadana ma soconayso waayo beesha caalamka oo Mareykanka ugu tuwaya waxaan u sheegaynaa laba dawladood istogay baan hore ikhtiyaaraya dawladdu waxa laga gudbay 19 laba dawladood baan kala dhisay laba system baan kala qaaday waxaad ictiraafteen oo ictiraafkii naga dhaxeeyay siiseen oo dhaqaale naga dhaxeeyay siiseen oo barsoolkii naga dhaxeeyay siiseen qolada Soomaaliya tii marka anaga cidaan naga tagay anaguna yeelin mayno qola adintaa wada siiseen inaanu la hadalno ama u baryatayno ilaa wixii naga dhaxeeyay dhex noqoto oo ruuxa laakiin Soomaaliland caalamku ka sugaysaa waxay ka mudan tahay Soomaaliland mid baan leh qaran baynuna 30 sano ayaynu Soomaaliland qarannimada dhisay inaan dawlad dhisano 30 sano ka horreeyay dagaal baynu ku jiray habad oo dulisme oo dhibaato leh oo af leh oo xarig leh oo muran leh ilaa maalintii la isku daray habeenkii la isku daray ee aadan cadal la daariyay inagu niyadsan oo aynu niri biqay wax walba wada qaato walaalnimada iyo shantii Soomaaliyeed doona waxa yaab lahayd markuu aadan cad habeenkii qudbadii akhriyay mudaharaadkii ka dhacay ee iyaga gudahooda ka taagnaa oo 13 ku dhaawacmeen 3 ku dhimatay 300 loo xiray oo dadkii martida u yimid 400 wafti ahaa ay ka yaabeen dabkaynu maalintii galnaa ilaa maanta aan taaganahay inkastoo shirka wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya afartii maalmood ee la soo dhaafay Djibouti uga socday aanay ka soo bixin qodobo midho dhal ah haddana shacabka reer Soomaaliland waxa ay si weyn